su-aasha u dambaysa dumarku ay soo qoreen waa la israad quraya dii maalintii dhaweyd oo aada laynoo radiyey waa loo baahan in la isradiyo wadaadada laftigooda odhanaysay ruuxa dumarka ah in ninkeedu daaweeyaa culimadu waxay u badan yihiin baa anigu ra'yigayga maaha aniga ra'yigayga haddii la weydiin lahaa qaybta waajibkan ku biiri lahaa laakiin culimadu waxay u badan yihiin markuu qofka wariyaha war soo qaado ee uu soo gudbiyo war inuu qariyaa sax maaha markaa qofka wax fatwoonayaana aqwaasha culimada iyo say u badan yihin waa in la sheegaa ammaana cilmiya baa laydha waa ammaano diineed culimadu say u badan yihiin waa saas baynu nidhi inuu sunno yahay daaweyntu aanay waajib ahayn laakiin qayb culimada qabto inuu waajib yahayna way jirtaa casriga waliba u badan oo le berigaa hore daawadu halkay taagnayd maanta way ka sii adagtay islaanta waxba laga yaabaa inay ku tidhaahdo war bal horta raashina haysiinine waaba taa hayaabe aya dhakhtarkay gee markaa qaybtaasaa baynu lahayn lahayni waan laynagu siminba waaya tan markaynu ka jawaabno dumarku soo qoreena annagana waajib bay nagu tahy in aanu ragga u shaqayno wax u karino dharka u maydhno u unsino u nadiifino tiiteedii baynu kaga jawaabaynaa haydi deeqdaynu leenahay xaawalayda culimadu waxay u badan yihiin jumhuurulculamaa iyo afarta madhab saddex ka midi inaanay waajib ku ahayn dumarkana oo iyagana sunno unay tahay inay ragga u shaqeeyaan oo ay wax u kariyaan oo ay dharka u maydhaan waajibkuma ahee waa sunne bay culimada islaamku u badan yihiin liannahu heshiiska la galay ee la kala saxeexday guurka kaana caqda alistimtaaca la listikhdaam heshiis wada raaxaysi buu ahaa laakiin heshiis isu shaqayn mu ahayn sidaa daraaddeed sunnay u tahay sidii inuu daaweeyaaba ay sunno ugu ahay iyaduna inay u shaqaysaa sunnay u tahay intaas waa ku filantahay bay la taxaawulayda labada waajibna in laysu tuuro labada sunnana in laysu tuuro qolada le markaa inay gabadh u shaqaysaa waa waajib waxay daliishanayaan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam inantiisii faadima bintu rasuul faadima zahraa aada u jeclaa nebigu carruurtiisana waktigii dambe keligeed baa ku soo hadhay markuu dhintay keligeed baa noolay 6 bilood bay ka dambaysay iyada iyo cali oo dacwoonaya isula yimi arrintan shaqada laftigeeday ka dacwoonaya calina inay shaqaysaa buu doonayaa iyaduna shaqadaasay ka hadlaysa marka nebigu faadimo wuxuu u sheegay inay shaqayso oo gurigeeda ay ka shaqaysa iyo hawsha ninkeeda markaa waxay tihi waayahay shaqaalaysi waa kuwanoo gacmiiba way baxeen shaqaalaha dadka fuqarada iyo masaakiinta ah baynu siinaynaa baktiyaye adugu dee dikri buuri dikri baan ku barayaa subxaana allahi walxamdu lilah wallahu akbar dikrigan aynu salaada dabadeeda akhrino kaasaa neerfahaaga xoojinaya oo tamarkuu kordhin doono shaqaalo kaa fursanaye iska dikri buuri aabo shaqaalana lagumaayo odaygana u shaqee cali bin abi aalib aalu beytkiisii usaa nebigu ku kala xukumay marka qolada le waa waajib kaasay daliishanayaan laakiin qowlka loo badan yahay inay u shaqayso xaasku ninkeeda waa sunne waa macruuf wax wanaagsan weeye laakiin waxay la dheeraad tahay iyadu waxay la dheeraad tahay marka heshiiskan la saxeexo iyadii waxa u waajibaya meher oo caqadkii istimtaaca xubinkeeda taranka muxuu ku xalaashaday waa in meher jiraa ninkii aan waxba haynuu nebigu u guurinayay sala allahu calayhi wasalam muxuu ku yidhi iltabis walow khaataman min xadiid waar inantan kaxaysan kari mayside waxaad raadisaa xoolo fargalna ha ahaadee xoolalaan lagu meherin kari maayo markuu waxba soo waayo kolkii dambe waa ku yidhi qur-aanka bar waxay la dheeraatay masaariiftii oo isugu jirta dharkii oo waajiba weliba waa dharkii iyo dhoonigii iyo gurigii waxaasoo dhan iyo sakaatu fidrigii isku wada dar arrimaha maalahe qoysku u baahan yahay carruurtii lagama hadlaya ayay oorida waajib u leedahay ninka haddee waajib u leedahayna mawjadu ilaa halkaasay gaadhsiisan tahay marka intaasoo dhan iyadaa la dheeraada waxaan filayaa markaa dumarku halkan ay ka yar damqanayaa waxa weeye sharciga kama damqanayaan ragga soomaalida yaro dhibay oo in badan oo qayira oo abutaksiina oo dayacayba iska badan markaasaa kuwa qurbuhuna carruurtoodii bay la rafaadayaan iyo naftoodii kuwa miyigana dee waxaa lagaga tegay
baadii baa laga tego tuulooyinkii baa lagu qaylaya kuwa magaaladaaba la qaatee markaa raggii hore u dayacay ayay leeyihiin bal yaan taraydhka loo dabcin oo aan qiil loo sii yaro samayni laakiin waxaynu sheegaynaa sharcigu rag iyo dumarba waa u siman yahay wixii waajib iyo wixii sunnaana in la ogaado weeyaan dumarkaana wixii naxariisa iyo xoolaa iyo maala islaamku uu badiyey oo nebigu sala allahu calayhi wasalam uu lahaa waa qawaariid waa dumar markaa waa dad u baahan in la dhowro oo la tixgeliyo inahaasaynu kusoo koobi lahay diinta ilaahayna barashay mudanta in la barto waxyaabaha had iyo jeer keena inay rag iyo dumarku isku dhacaan waxaa ka mid ah laa yacrifuuna kaiira min alxuquuq azawjiya xuquuqda inta badan baa la garanaya waa casharo u baahan raggu inuu qaybo muxuu orida xaq ugu leeyahay waajib iyo sunnaba maxaanu si xaq ugu lahayn oriduna waa inay barataa ninkeedu muxuu xaq ugu leeyahay iyaduna maxay xaq ugu leedahay xaq iyo waajib baa la kala idhaa waxaad adigu leedahay waa xaq waxa ku saaranina waa waajib fi atfahi alashyaa waxyaaba yarar baa laga yaabaa inuu reerku ku dumo waxa laga yaabaa inuu idhaa shaahay soo kari war waan taahayaa ur baan leeyahay markaasuu le hal dalqaad ku furay kol haddaanad shaahaba karin karay waa wax yaroo basiida iyadana waxa laga yaabaa wax yar inay ka codsato markuu yeeli waayo ay tiraana furba marka xuquuqda waa in la bartaa taasaa reerku ku badbaadaya insha allahu hana la dadaalo qolo walibana waajibkooda ha qaadato sharcigu halkuu dhigayna ha ku qancaan wahada ma aquluhu waastaqfiru llah